soo dhawaada muuqaal cusub intaana muuqaalka bilaabin ka hor waxaan ku salinaynaa xabiibkeena suubana sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam haddaba labadan labaano oo kasoo jeeda dalka Jeynaha ayaa jecel ay isjeclaadeen dartood baa dowladda Jeynaha waxay ugu xukuntay dil toogasho sabab haddaba waxay kasoo bilaabanaysaa Chunky Poo magacooda aad ay u dhibadan yihiin Chunky waa ninka yaa Chinkina waxa waaye gabadha okay ninkan ayaa markiisa hore wuxuu lahay xaas iyo laba ciyaal ah halka uu ka qariyay gabadhaanayta inuu xaas leeyahay maaragtay hoosna uu ka watay oo xaaskiisa ku qiyaameynayay markii dambe markii ay ogaatay mistress-kiisa inuu ninkan xaas leeyahay ay waxay ka codsatay inuu naagtiisa u furo hadii uu doonayo inay noloshooda macnaha nolosha isla wadaagaan oo jecelkoodan sii jiro haddaba Chunky ayaa taas ogolaaday xaaskiisana sidii ku furay markii dambena ilmihii ayuu ka reebtay xaaska asaga ayaa haystay waxay u sheegtay inaysan taas macquul ahayn ay rabaan inay ilmaha dilaan si noloshooda ay u bilowdaan nolol cusub oo fresh ah ninkii doqonkaayna arintaas gabadhii uu ka yeelay 2021 waa kan asaga oo dabaqa u ka tuuray imagine aabaha gacantiisa aad ku jirtay oo macnaha leeda adduunka qofka macnaha aabiis markuu gacantiisa ku jiro wuxuu dareemaa inuu macnaha yahay meesha ugu ammaansan inuu ku jiro laakiin se cunug iska yar oo iska hurdaayo oo dareemeynin oo sida naxariista la u haysto ayuu wuxuu ka soo tuuro dabaqa 15 asaga oo isdhahaayay waxa dhahdaa aniga uu hurdaay ay ciyaalka soo dhaceen oo accident ka dhig taas ay ku heshiyeen laakiin arintaas ayaan u shaqeyn sababtay taa kaamira ayaa ku dhacday waana la soo xiray isla markii waxaana lagu xukumay dil toogasho waxay qaateen abiilkaas oo dib u dhigay laga diiday oo waxa laga diiday last year dilkan waxa lagu xukumay bisha koowaad aan jeclaa 24 sanadkan baa waxa waaye qoorta loo jaro labadoodii sida aad ka aragteen macnaha sawirka muuqaalkaas fiidiyoga saarnay ama thumbnail la yiraahdo marka waxaan ku weydiinayaa adiga arintan maxay kula tahay maxaa ku xukumi leed labaanahan naagtan mistress-ta oo xaasidada ah iyo ninkan doqonka yaa oo ilmihiisii naag darteeda u dilay kan jecel ma la dhigi karaa mase waxaa la dhigi karaa waali idinka idin daay I know sheekada way gaaban tahay laakiin wixii raay ka qabto xagga commentiga noogu dhaaf muhiim ayaa noo tahay sidoo kale tan waxaan ka codsanayaa si sharaf la kaaga codsanayaa ina walaalkay ama walaashay aad muuqaalka noo sii share gareyso noo like gareyso subscribe na aad channelka aad dahato haddii oosan subscribe oo ku ahayn sidoo kale tan waxaad iga soo follow gareysiin TikTok-ga waxaan ku soo galaa isku filan reviews halkaan idin kugu soo qori doona waxyaalo badan oo ayaan ku soo bandhigaa oo aad iyo aad ku anfici doono ama skin care hair care waxa ku dhaay guriga alaabtiisa waxa ku dhaay caadi maan haddana waxa waa alaab waxaba soo socotaba aan aad yaabi doontiin ma fahanteen meesha sadada soo follow gareyn wax badan ayaa ku dhaafayo soo follow gareyso halkaana waa igala socod doontiin insha Allah muuqaal 3 ayaa idin soo gali doona haduu Ilaahay idma weegi aad iyo aad ugu maasantaa daawashada muuqaalkaneed waa inoo muuqaal kale Allah macaka